kusoo dhawaada qaybtii saddexaad shirqooladii lagu dilay madaxweynayaasha caalamka. Waxaan ku bilaabaynaa Simon Badliero wuxuu ahaa madaxweynihii Ukraine, wuxuu ahaa nin siyaasi, journalist, marna wuxuu hogaaminayay ciidamada qaranka inta madaxbannaani ka qaadanan wadanka Ruushka. Madaxweynaha xilka wuxuu qabtay 11 February 1919 mar uu booqasho ku tagay wadanka Faransa asoo dhex lugeynaya magaalada Paris. waxaa ka hor imaaday Ishvarsabad wuxuu ahaa nin Ukraine ah oo dadkiisa lagu xasuuqay baraanbax. markaas madaxweynaha su'aal ayuu weydiiyey, wuxuu yiri adiga ma tahay mudane Simon? wuu ka aamusay, uma jawaabin. kadibna xabad ayuu ku dhuftay. madaxweynaha halkaas ayuu ku dhintay, wuxuuna dhintay 25 May 1926. Zhang Zuolin wuxuu ahaa madaxweynaha China, wuxuu ahaa nin dictator ah, dagaal ooge. talada wuxuu la wareegay 18 June 1927. wuxuu duulaan ku qaaday Beijing, Japan. arrintaas oo dulqaadi waaya wuxuu keenay ciidamo aad u fara badan. Zhang wuxuu ka soo cararay Beijing asagoo maraya koonfurta Manchuria ayaa qarax loo dhigay, wuxuu saarnaa train. madaxweynaha wuxuu geeriyooday 4 June 1928. dilkiisa waxaa sheegtay mid ka mid ah saraakiisha ciidamada Japan, kaasi lagu magacaabi jiray Kamoto Taisaku. Paul Damour wuxuu ahaa madaxweynihii Faransiiska, wuxuu talada qabtay 13 June 1931. waxaa la dilay asagoo ka qayb galayo bandhiga buugaagta magaalada Paris, hotelka Salomon de Rothschild. waxaa dilay Paul Gorgolov, wuxuu ahaa nin qaxooti ah, asal ahaantiis wuxuu ka soo jeeday wadanka Ruushka. wuxuu ahaa sidoo kale qoraa, laakiin magaciisa runta ma ahayn Paul Gorgolov, waxaa la dhihi jiray Paul Timofeyevich. wuxuu aaminsanayay fikirka fajistaha. xabad ayuu ku dhuftay, madaxweynaha wuu dhaawacmay, wuxuuna dhintay 7 May 1932. Sanchez Cerro wuxuu ahaa madaxweynihii Peru, waa madaxweynihii 41aad. wuxuu ahaa korneel sare, wuxuu ka mid ahaa saraakiishii xilka ka tuurtay madaxweynihii Augusto Bernardino. Sanchez kursiga wuxuu ku fadhiistay 8 December 1931. madaxweynaha wuxuu aaday xarunta ciidamada Santa Petras magaalada Lima ee wadanka Peru. halkaas tababar ciidan waxay ku sameynayeen dhalinyaro gaaraysa 20,000. madaxweynaha wuxuu doonayay dhalinyaradaas inay ka qayb qaataan dagaalka Peru iyo Cuba. halkaas waxaa joogay Alberto Dimension, wuxuu ka mid ahaa xisbigii Abra. xisbigaas pressure waxaa saaray madaxweynaha, wuxuu diiday inay ka qayb galaan siyaasadda. Alberto wuxuu toogtay madaxweynaha 3 April 1933. madaxweynaha halkaas ayuu ku dhintay. Gualberto Villarroel wuxuu ahaa madaxweynihii 39aad ee wadanka Bolivia. wuxuu xilka qabtay 20 December 1943. intuu xilka hayay wuxuu dilay 2 ka mid ah wasiiradiisii, kuwaas lagu magacaabi jiray Cospitata iyo Colacolo. wadanka si tartiib ayuu xaaladiisu xumaanayay. ardayda jaamacadda iyo ardayda iskuulada waxay sameeyeen shaqo joojin, waxay dalbadeen in loo kordhiyo macallimiintooda mushaar. kadib isku dhacyo ayaa imaaday ciidanka iyo ardayda ayagoo banaanbaxaya. waxaa la dilay arday aad u fara badan. mudaaharadadii waa sii xoogeystay, shacabka way kaceen, waxay galeen xeryaha dowladda, waxay kala soo baxeen hoob. shacabkii dowladda ayay isku dhaceen. dowladdii Gualberto halkaas ayaa laga saaray. kadib Gualberto ayaa gacanta lagu soo dhigay, waa la qabtay, waa la dilay, waa la daldalay. waxaa lagu daldalay barxadda Murillo ee magaalada La Paz.
markii taariikhda ahayd 21 July 1946. xusni al-zaciim wuxuu ahaa madaxweynaha Suuriya. asal ahaantiis wuxuu kasoo jeeday qowmiyadda Kurdi. wuxuu ahaa ciidamadii boqortooyada Cusmaaniyiinta intii madaxbannaani qaadan wadanka Suuriya. kadib wuxuu galay iskuul, wuxuu noqday sarkaal ciidan. 1948 markuu dhacay dagaalkii Carab iyo Israa'iil, wuxuu hogaaminayay ciidamadii Suuriya. way ku fashilmeen, way ku guuldareysteen. baarlamaankii Suuriya waxaa ka dhacay foodo. waxaa la afgambiyey madaxweynihii Suuriya Shukri al-Qawadri. madaxweyne Xusni wuxuu talada qabtay 3 Maaj 1949. 4 maalin kadib markuu xilka hayay, wuxuu heshiis la galay Israa'iil iyo Mareykanka. wuxuu ogolaaday wadanka Israa'iil inay maraan tubooyinka shidaalka Trans Arabian Pipeline oo ka imaanaya Sacuudi ilaa Lubnaan. ilaa hoosaad ayaa la helay. waxaa la ogaaday Mareykanka inuu hoos ka taageerayay madaxweyne Xusni. madaxweynaha waxaa la dilay 4 bilood kadib 14 Agoosto 1949. dilkiisu wuxuu ku dhacay caasimadda Suuriya, Dimashq. Sami al-Hanawi wuxuu ahaa madaxweynaha Suuriya. sidoo kale wuxuu ahaa sarkaal ciidan. wuxuu xog qabtay dalka 19 Diseembar 1949. madaxweynaha muddo markuu hayay 3 sano. waxaa xilka sidoo kale ka tuuray Adib bin Xasan Shigshawi. madaxweyne Sami wuxuu cararay dalka Lubnaan, waxaana dilay Hirsi al-Basri. waxay ilmo adeer ahaayeen ra'iisul wasaarihii hore oo la dilay Muxsin al-Basri. waxaana dilay Sami, wuxuuna u argudayay in adeerkiisa. Sami waxaa lagu dhex dilay caasimadda Beirut ee wadanka Lubnaan, wuxuuna dhintay 31 Oktoobar 1950. Carlos Delgado Calvo wuxuu ahaa madaxweynihii Venezuela. xilka wuxuu qabtay 24 Noofembar 1948. mar asagoo maray magaalooyinka Calab iyo Dublin intuu dhexeysa caasimadda Caracas, waxaa afduubtay kooxo mucaaradka ah kuwaasoo hogaaminayay 2 walaalo ah. waxaa lagu magacaabi jiray Simon Urbin iyo Timonka Urbin. madaxweynaha way dileen. 4 maalmood kadib waxaa gacanta lagu dhigay Simon Urbin. xabsi ayaa la dhigay. ciidamada ammaanka waxay amreen in la dilo Simon, kadibna waa la dilay. Raymond Cantera wuxuu ahaa madaxweynihii 16aad ee Panama. waxaa la doortay 1 Oktoobar 1952. madaxweynaha waxaa la waayay meel cirib iyo jaan dhigay. waxaa laga helay meydkiisa stadiumka meesha tartanka orodka. halkaas waxaa ka agdhawaay Martin Eleven waa la soo qabtay, waa la xiray, xabsi ayaa la dhigay. waxaa lagu eedeeyay dilkiisa, laakiin wuxuu sheegay inuu dilkaas wax shaqo aan ku lahayn. markii ahayd 12 January 1955 waxaa qirtay dilkiisa Abukate Ruben Miro. wuxuu sheegay inuu soo amray dilkiisa musharaxii laga guuleystay tartankii madaxweynenimada. Kusato markii la soo qabtay wuxuu sheegay dilkii madaxweynaha wax lug inuu ku lahayn. maxkamaddu waxay ku xukuntay 6 sano iyo 8 bilood xarig ah. markii uu dhamaaday wuxuu aaday dalka Spain. noloshiisa halkaas ayuu ku dhamaystay. Anastasia Somoza Carcia wuxuu ahaa madaxweynihii 21aad ee dalka Nicaragua. xilka wuxuu qabtay 1 January 1937 ilaa 1 May 1947. xilkiisa markuu dhamaystay kursiga ayuu ku dhigay. wuxuu ahaa dictator. familkiisa waxay dalka ka tiri jireen muddo ilaa iyo
42 sano. intuu xilka hayay mucaaradka ayuu caburi jiray. waxaa ka jira dowladda musuqmaasuq. sanadka markuu ahay 29 September 1956 madaxweynaha wuxuu kasoo qayb galay xafladaas waxaa isku soo qariyay Rigoberto Lopez wuxuu ahaa nin abwaan. inta badan wuxuu dileecay jiray madaxweynaha. bistoolad ayuu soo qarsaday. madaxweynaha wuxuu ku dilay xafladda dhexdeeda. xaflad waxay ka dhaceysay magaalada Lyon ee dalka Nicaragua. madaxweynaha dhaawaciisa waxaa lala cararay isbitaal ku yaala dalka Panama. muddo kadib wuu geeriyooday. Lopez waxaa lagu xukumay dil toogasho.